بسم الله الرحمن الرحيم وأصبحنا ما أحد شنطة بيشا أكتوبر سنة كلا بكون لباتن يشان كسو دوادا مركله يبرامجكي حولشada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamida Trump oo soo bandhigay qariirad muujinaysa xadka ciidamada Israa'iil ku ekaanayaan wajiga koowaad ee joojinta dagaalka Gaza iyo isweydaarsiga maxaabiista Hamas oo si adag uga hadashay in iyadoo laga hadlayo xabad joojin iyo heshiis Israa'iil ay sii wado duqeynta iyo gumaadka ka dhanka shicibka Falastiiniyiinta Turkiguna waxa uu ka digay in Netanyahu isku dayo inuu majaxaabiyo qorshaha Trump ee la xiriira dagaalka Gaza Ethiopia oo si adag uga jawaabtay eedeymo ka soo yeeray Masar oo la xiriira biyo xireenka iyo waliba daadadka ku dhuftay waddanka Suudaan dowladda Ukraine waxay ku eedeysay Shiinaha inuu taageerayo Ruushka isla markaasna uu ka saacidayo macluumaadka la xiriira goobaha la duqeynayo dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada marka la daawadayaa si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa kadib markii dowladda waddanka Masar eedeymo culus ay u jeedisay Ethiopia oo la xiriira in sababta ka dambaysa daadadka ku dhuftay waddanka Suudaan ay tahay biyo xiranka Ethiopia iyo biyaha ay soo fatahayso haddaba Ethiopia ayaa arrintaasi ka jawaabtay wakaaladda wararka Ethiopia ee magaceeda loo soo gaabiyo ENA ayaa waxa ay sheegtay in Addis Ababa ay diiday waxa ay ku tilmaamtay eedeymo iyo hadallo sumcad dil ah oo ka soo baxay wasaaradda biyaha iyo waraabka ee dalka Masar oo la xiriira biyo xireenka weyn iyo saameyntiisa suurtagalka ah ee ku saabsan daadadka Suudaan iyadoo dhalishay wax ay ugu yeertay Masar oo isku arkaysa inay mas'uul ka tahay gobolka iyo inay ku hadasho magaca deriskeeda war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda biyaha iyo tamarta ee Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay in bayaankii dhowaan Masar ka soo baxay ee ku saabsanaa biyo xireenka weyn uu bixiyay qaladaad iyo isdiidaya iyo marin habaabin wasaaradda waraabka ee Masar ayaa jimcihii war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in biyo xireenka weyn ee Ethiopia uu sabab u yahay daadadka hadda ka socda dalka Suudaan laakiin Addis Ababa ayaa sheegtay in daadadka Suudaan ay ka dhasheen qulqulka kordhaya ee biyaha webiga Niilka cad oo aan wax xiriir ah la lahayn arrinkaasi biyo xireenka weyn ee Ethiopia ay dhisatay Ethiopia waxa ay dhaleecaysay waxa ay ku tilmaamtay codka mas'uuliyad sheegashada ah ee Masar iyo waliba u qaadashada inay xaq u leedahay inay ku hadasho magaca deriskeeda iyadoo xustay in eedeymaha Masar ay khilaafsan yihiin bayaanada rasmiga ah ee ka soo baxay mas'uuliyiinta Suudaan qudooda sababta daadadka loogu arkay Suudaan waxay si weyn ugu xiran tahay kordhinta qulqulka biyaha ee ka imaanaya webiga Niilka cad oo ah laan ka mid ah webiga Niil taas oo aan wax xiriir la lahayn Ethiopia ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay dowladda Ethiopia arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wali uu taagan yahay khilaafka ka dhex aloosan Masar iyo Suudaan oo dhinac ah iyo Ethiopia oo dhinac ah oo ku saabsan buuxinta iyo hawlgalka biyo xireenka Ethiopia kaas oo la bilaabay dhismihiisa sanadkii 2001 Qaahira iyo Khartoum waxay dalbanayaan in la gaaro heshiis saddex geesood ah oo sharci ah oo waajib ka dhigaya in la hakiyo buuxinta iyo hawlgelinta biyo xireenka weyn dhinaca kale Ethiopia waxay ku adkaysanaysaa in aysan jirin baahi loo qabo heshiis ay saxiixdo iminka isla markaasna aysan lahayn ujeeddo ay ku waxyeelaynayso dalalka deriska la ah taas oo keentay in wadahadaladii hore la hakiyo muddo 3 sano ah ka hor intii aan la bilaabin 2023 laakiin haddana mar kale waxa la hakiyay 2024 laakiin bishii September ee aynu ka soo gudubnay Ethiopia waxay si buuxda ugu dhawaaqday in ay furtay biyo xireenka isla markaasna shaqadiisii uu wato hagaag markan xagga Yurub aynu eegno gaar ahaan dagaalka Ukraine iyadoo xukuumadda Ukraine war ka soo yeeray ay eedeynayso
shiinaha. haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee amuurtan. dowladda waddankaasi Ukraine mas-uul sare oo ka tirsan oo lagu magacaabo Oleh Alexandrov isla markaasna ah sarkaal ka tirsan hay'adaha sirdoonka ee Ukraine ayaa u sheegay warbaahinta waddankaasi in shiinuhu uu siinayo Ruushka xog sirdoon si uu ugu fududeeyo Moscow inay si wax ku ool ah u fuliso weerarada gantaalada ee laga geysanayo gudaha dalka Ukraine. wuxuu sharaxay in shiinuhu uu xogta uu ku helayo dayax gacmeedka uu ku wareejinayo Ruushka taas oo ku saabsan bartilmaameedyada la duqeynayo oo ay ku jiraan goobaha ay maalgashiyada shisheeye ku lug leeyihiin. waxaa jira caddayn muujinaysa in iskaashi heer sare ah uu u dhexeeyo Ruushka iyo Shiinaha kaas oo la xiriira howlgallada sirdoonka dayax gacmeedka ee dhulka Ukraine si loo aqoonsado goobo istiraatiiji ah oo la beegsado ayuu yiri sarkaalkani. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo mas'uuliyiinta goboleed ayaa waxay sheegeen in bishii Agost weerar gantaal oo Ruushka uu ku dhaftay warshada qalabka korontada samaysa oo ku taal waqooyiga galbeed ee dalkaasi ee deegaanka Zakarpattia halkaasna 15 qof waxyeello ay ka soo gaartay. Zelensky ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in bishii Abriil Shiinaha Ruushka uu siiyey hub iyo rasaas isagoo xusay in dowladdiisa ay hayso xog sirdoon oo muujinaysa Shiinaha in uu hub u soo daabulayo Ruushka si dagaalka uga adeegsado. ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay ilaa iyo hadda Shiinaha oo la xiriira hadalkan ka soo yeeray dowladda waddanka Ukraine, laakiin caadiyan waxaa la ogsoon yahay Shiinaha iyo Ruushka in xiriirkoodu aad u fiican yahay. bishii Agost madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaa socdaal uu ku tegey magaalada Beijing halkaasna wuxuu kaga qayb galay munaasabadda 8 sano guuradii ka soo wareegtay markii uu joogsaday dagaalkii Shiinaha iyo Ruushka waa Shiinaha iyo Japan iyo sidoo kale markii uu soo afjarmay dagaalkii labaad ee adduunka lagana guuleystay Japan. xilliyadaasi wadahadallo toos ah ay yeesheen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping ayaa waxaa lagu faaqaday sidii arrimahan iskaashiga labada wadan loo sii xoojin lahaa. waa hagaag inkastoo laga hadlayo dagaalkan Gaza in la soo afjaro heshiis xabad joojin iyo arrimo kale oo la xiriira maxaabiis isdhaafsi, haddana Israa'iil duqeynta ayay sii wadaa. ilaa iyo shalay dad ku dhow 70 qof ayaa marayka Gaza lagu dilay oo Israa'iil duqeynteedii iyo weeraradeeda lagu dilay. arrintaas marka Xamaas ayaa ka carootay, war bay soo saartay. haddaba aynu eegno telefishinka Al Jazeera oo warkan qoray. Xamaas waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay sii wadaan duqeymaha iyo xasuuqyada maalinlaha ee Gaza isla markaasna taas ay muujinayso waa sida warka loo yiri beenta ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegayo in la dhimay howlgallada military ee marayka Gaza. dhinaca kale Israa'iil hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Tel Aviv ay ku wargelisay Mareykanka goobaha ciidankooda ay ku sugnaan doonaan. si gaar ah waxay u calaamadaysatay Israa'iil 3 goobood oo waaweyn oo ku yaala marayka Gaza oo ay ku jirto goobta la yiraahdo Philadelphia ee xadka Masar, xitaa kadib dhamaystirka bixitaanka guud ee ciidanka Israa'iil. arrintan ayaa waxaa laga yaabaa inay keento ismariwaa ka dhasha goobaha Israa'iil ay doonayso in ciidankeeda ay ku sugnaadaan, maxaa yeelay aagan Falastiiniyiintu ma aqbalayaan in Israa'iil ay ku sugnaato. laakiin war kale oo asna cajiib ayaa Israa'iil ka soo yeeray fiidnimadii xalay. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa u sheegay telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay in heshiiskan hadda jira Israa'iil aan lagu qasbin balse uu ka dhashay hindisaha xukuumadda laftideeda. halka markaan dul istaagno wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil baa wuxuu leeyahay hindisahan waa mid ka yimid xukuumadda Israa'iil. laakiin meesha waxa ka socota in Trump uu leeyahay aniga qorshaha wata. macnaha warka Trump uu sheegayo iyo warka Israa'iil ay sheegayso waa kala duwan yahay. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil baa wuxuu leeyahay heshiiska anagana kuma qasbin. ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay warbaahinta Israa'iil wax kale ka hadli mayso.
waxay ka hadlaysaa Trump waa iibsaday wuxuu nagu bedeshay waa sida Israa'iil warbaahinteed ay leedahay abaalmarinta nabadda ee caalamka waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ahaa oo warbaahinta Israa'iil xitaa lagu tilmaamay sida xitaa khubarada ay sheegayso inaysan xishoonayn sawirro la soo bandhigay idama tusin karna sawirradaas sawirradan waxaa ka mid ah Donald Trump oo gar loo yeelay weyn oo qorisita kadibna calaamadda caanka ku yihiin Falastiiniyiinta loo xiray maxaa kaloo la arkay sawir kale Trump oo loo xiray tabeebe ama maradan weerada oo lagu qoray Kataa'ib al-Qassam macnaha dagaalyahan ka mid ah iska cabinta Falastiiniinta Donald Trump waa madaxweynihii Mareykanka waa ninkii safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv ku tiil intuu ka soo raray Qudus geeyey oo la isku haysto waa ninka buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil ka haysta Syria u aqoonsaday inay iska leedahay Israa'iil waa ninka hubkii ugu badnaa Israa'iil ku taageeray intii colaadan ay socotay waa ninka Netanyahu uu ku tilmaamay inuu yahay saaxiibkii ugu fiicnaa ee abid Israa'iil ay hesho ee aqalka cad ka taliya ninkii waxa ku falaadaysa warbaahinta Israa'iil sawir kale muxuu muujinayaa isagoo haddana gar weyn qorigiisana sita alyaasiinkiisa sita xukuumadda Israa'iil cid ka hadasha ma jirto waxyaalaha warbaahinta ay soo bandhigayso arrinka kale muxuu yahay marka warbaahinta waxay kaloo soo bandhigaysaa heshiiska in lagu qasbay Israa'iil Netanyahu inuu moraal dilacsan yahay inuu la yaabay hadalka ka soo yaray habeen hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaas oo idil marka wasiirkan wuxuu gadaya aragtida Israa'iil wuxuu leeyahay heshiiskan ma ahan midna la ku qasbay hindisaha anaga iska lahaynba maxaa cadeynaya marka Israa'iil in la hayay hindisaha ayay khibradu leedahay waxaa cadeynaya Jared Kushner ma aha baa la yiri nin ka shaqeynaya wax liddi ku ah Israa'iil waa wiilkan qaba gabadha Donald Trump Stephen Witkoff laftigiisa Tony Blair laftigiisa marka waxa leeyahay waxa suurtagal ah Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil inuu run sheegayo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil laakiin waxaan kale ay tahay arrin isku qarisa laakiin arrinta cajiibka waxay tahay habeennimadii xalay telefishinada Iran warbay sii daayeen waxay yiraahdeen heshiiskan la sheegayaba ujeedo kale uu leeyahay dagaal baa nagu soo fool leh waa inaan is ilaalinaa hadda ka hor maxaa dhacay habeenada kamid ah markii la weerarayay Iran habeenka la weerarayo maalinteeda Netanyahu wuxuu ka hadlayay xabad joojin iyo dagaalka qasay in la soo afjaro oo uu leeyahay waxaan gudbinay hindisayaal dagaalka lagu soo afjarayo isla habeennimadii wuxuu ku dhuftay Iiraaniyiinta marka waxay leeyihiin arrintan waa arrin hoosaasin ah aan diyaar garowno waxa kaloo heshiiskan xalay ka hadlay hogaamiyaha Xisbullah Sheikh Naciim Qaasim wuxuu sheegay inuu yahay heshiiskii ugu xumaa isla markaasna dawladda Isbayn oo kaliya ay ka fiican tahay dhammaan wadamada muslimiinta iyo wadamada carabta oo idil heshiiskan aad buu uga soo horjeestay wuxuu yiri heshiiskan haadaan buu ka tari doonaa qadiyadda Falastiiniyiinta waanu iman doonaa warka Trump ku saabsan laakiin aan eegna markan Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa digniin bixiyay taasi oo ku aadan in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu markasta carqaladeyn karo qorshaha lagu soo afjaraya dagaalka Gaza isagoo wuxuu yiri xoojiyay in dhaqanka xukuumadda Israa'iil uu yahay mid aan la saadaalin karin xitaa iyadoo wada hadallada ay socdaan iyo duqeyntii wada xagga Mareykanka marka aynu eegno iyo Donald Trump madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ku dhawaaqay in la gaaray qorshe markaasi ku aadan heshiiskan in la hirgeliyo wuxuuna sheegay in Israa'iil ay ogolaatay goobaha ay ka baxayso isla markaasna wuxuu soo bandhigay qariiradan inta madow waa xuduudda Israa'iil iyo Gaza laakiin Israa'iil waxay leedahay ilaa iyo waxaan ku jireynaa gudaha Mareykanka Gaza diilintan jaalaha
macnaha rafax inta badan khan yunis oo ku xigta inta badan daara balax magaalada qaza jabaaliya baytalaahiya baytaxanuun goobahaas oo idin inay Israa'iil haysato marka xalay wuxuu soo dhigay baraha bulshada uu ku leeyahay bogga uu ku leeyahay Donald Trump soo bandhigay isniinta marka Xamaas baa loo geyn doonaa waxaan ma aqbali doontaa sababta Xamaas waxay rabtaa Israa'iil inay tagto diilintan madowga ah yaa dabarad qaadaya marka Israa'iil ciidanka in la baxayso hadda waxaynu arkaynay iyadoo leh Philadelphia ama Saalaxdiin dhidabka la yiraahdo waa ku sugnaan doonaa waa arrimaha la isweydiinayo tira marka wuxuu leeyahay kadib wada hadallo Israa'iil waxay ogolaatay qadka hore ee ka bixitaanka Xamaasna waa la wadaagay buu yiri wuxuu daabacay qoraalkan ama qariiradan wuxuu yiri marka Xamaas ay xaqiijiso in ogoshahay hindisahan xabajoojintu way dhaqan gali doontaa isla markiiba isweydaarsiga maxaabiistana wuu bilaaban doonaa waxaana abuuri doonaa xaalad gogol xaara marxaladda xigta ee ka bixitaanka taas oo nagu soo dhaweyn doonta dhammaadkii masiibadan Trump wuxuu sheegay in xabajoojintu ay dhaqan gali doonto marka Xamaas ay ogolaato qadka hore ee bixitaanka isla markaasina isweydaarsiga maxaabiista uu dhici doono waqtigaasi isku mar dhinaca kale shabakada Politico ee ka soo baxda waddanka Mareykanka ayaa waxay qoraysaa iyadoo soo xiganaysa sarkaal Amerikaan ah in maamulka Mareykanka uu xadidayo helitaanka qorshaha Trump iyo xogta la xiriirta iyadoo laga cararayo in markaas saxaafadda loo dusiyo warar sarkaalkan wuxuu yiri waxaan xadidnay cidda loo ogol yahay qorshaha Trump inay wax ka ogaato waxaana qof walba lagu wargeliyay in arrintan la soo bandhigi doono marka ay soo gabagabowdo macnaha waxa laga cararaya meesha hadda wax marayaan iyo wada hadallada hoose saxaafadan inay intay dhex gasho warka soo xiraasato oo arrintii ama Xamaas ay ka xanaaqdo ama Israa'iil ay ka xanaaqdo marka waxa la yiri wixii hal hayaali horta isniinta waxa loo kulmi doonaa Masar wafdiga Xamaas xalay bay tageen wafdiga Israa'iilna waxay u baahan tahay inay tagi doonaan galabta ama saakay tagi doonaan marka isniinta wada hadallo adag ba bilaaban doonaa habeenkii maxaan idin soo gudbinay Xamaas oo taagan ma aqbali doona ciidanka Israa'iil iyagoo ku jira marayka Gaza in aan maxaabiis wareejino marka dabcan wixii soo kordha wayna soo arki doonaa insha Allah taala inta ayaan ku soo gabagabeenaya barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo